Waxaa ka sii daraysa xaaladda guud ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo toddobaadyadii la soo dhaafay ay ka dhaceen fatahaado ballaaran oo saameeyay Webiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dadka ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa badi isaga barakacay guryahooda kadib markii daadad xoog leh ay ku soo qarqiyeen guryahooda oo ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Daadadkani ayaa waxa ay ahaayeen kuwo aad u xooggan isla markaana qarqiyay guryo badan oo ku yaala magaalada Beledweyne. Dadka qaarkii ayaa waxa ay ka barakaceen guryahooda kuwaasoo dhibaatooyin fara badan ay ku haysto duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Fatahaadii labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ka soconaysay magaalada Beledweyne ayaa waxaa khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ka soo gaaray dadka ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dadkani ku nool magaalada Beledweyne ayaa ka codsaday dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha ku shaqada leh wax u qabashada dadka fatahaaddu saameysay ee ku nool magaalada Beledweyne, waxaana ay sheegeen in ay gargaar degdeg ah ka dalbanayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dhowaan ayaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxa uu sheegay in gurmad degdeg ah loo fidin doono dadka masiibada ka soo gaartay fatahaadii dhowaantani uu geystay Webiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaana uu sheegay in dhowaan guddi loo xilsaaray isla markaana ay tagi doonaan goobaha ugu daran ee fatahaadda Webiga Shabeelle oo ka geystay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Dadkani ayaa badi waxay u barakaceen deegaanka Cirgaal oo 5 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana halkaasi ku haysta dhibaatooyin kala duwan. Dadkani ayaa waxa ay ku sugan yihiin deegaanka Cirgaal. Maalintii waxaa ku dhacaysa dhibicda qoraxda, habeenkiina waxa ay duursadaan dhaxanta. Mana jirto cid si gaar ah wax uga qabatay dadkani masiibada rabbaaniga ah ee dhanka fatahaadda ka geystay Webiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaana ay ka dalbadeen dowladda dhexe ee dalka inay wax si degdeg ah ula soo gaarto. Dadkani ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa deegaanka Cirgaal ee gobolka Hiiraan. Waxa ay sheegeen in haba yaraatee wax caawinaad ah aysan ka helin dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha sheega inay gargaaraan dadka dhibaataysan ee ku sugan Soomaaliya. Isku soo wada duuba fatahaadda Webiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne kuma aysan eka oo kaliya Beledweyne ee waxaa kaloo ay saameyn ay ku yeesheen deegaano ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Cadale oo ah degmo hoos yimaada magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe, isla markaana mara. Ismaaciil Abuukar Kasmaal Gurow, Gaalkacyo.